kulan ujeedadiisu daaran tahay ilaalinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada oo loo qabtay asxaabta qaranka ee gobolka Sool ayaa lagu qabtay hotel Casuura ee magaalada Laascaanood. Kulanka waxaa soo qabanqaabiyay dalada Sonsof waxaana ka soo qayb galay madaxda asxaabta qaranka ee gobolka Sool Xildhibaan Axmed Xasan Casoowe iyo mas'uul ka socota dalada Sonsof. ugu horreyntii waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha dalada Sonsof أول عبد الرحمن ورسمه isagoo ka warbixiyay ujeedada uu daaray yahay kulankan idinka gobolka Sool waxaanu ka qabanaynaa oo maanta halkan u joognaa arinta ilaalinta amniga iyo isdhexgalka bulshada dawlad kaliya nabadgelyo ma ilaaliso dawlad kaliya ama police ha ahaado military ha ahaado ama waxay doonaan nabadgelyada iyagu ma qaban karaan laakiin nabadgelyo waxa lagu qaban karaa marka dadka shacabka ee qaybaha kala duwan ee bulshadu ay bileys iyo dawladba la shaqeeyaan ayaa amniga la ilaalin karaa oo magaranaysa laga midhalin karaa sidoo kale waxa iyaguna dhinacooda ka hadlay mas'uuliyiinta ka socda asxaabta qaranka ee kulmiya u cidiya wadani nabad baa naas la nuugale baa la yiri nabadi waa naftaada la yiri nabad wax ka qaalisan la waa nabadu waa nolol nabada inaga laftigeenu hadaynan xaafadaha iyo iska warqab ayna samayn oo meeshii aynu wax ka shakilo iyo meeshii aynu wax ku aragno ayna booliska ayna warsiin hadda sida wax loo qabto laftigeedu waa adkaanaysa ka dhacay magaalada ama maamulka gobolka ha ama degmada ha ahaade ama xuraankood ha noqdee horta wixii ayaan deeyno ummadda soo bandhigaan waxa laga sheegay dad la qaaday oo leeyahay waxa lagu maxkamadeynay Hargeysa ma suurtagal baa inaad ku dhaarsi shacabkana waxa laga rabaa inay dadaalaan oo iyagu dhowd maamulka marka la jooga la shaqeeyaan waa ka furan qofka ku doonay caawba luuqaas ku sii sugaya waa luuqyadan xal loo helaa arinta sirdoonka gobolka in la xoojiyo oo gobolku sirdoon yeesho xoog leh oo waxa weeyaan xogtana lagu aamini karo qofkii markuu wax sheegayo qofku wax u sheegayo waa inuu yahay qof uu ku aaminayo sirtan uu sheegayo gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay Axmed Xasan Casoowe oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliya ee laga soo doortay gobolka Sool salaan kadib waxa isu keenay maanta waa arrimo amni weeye hay'addan Sonsofna waa uga mahadnaqaynaa taakulaynta ay ka geysanayso arrimaha amniga xisbiyadu marna way tartamaan afkaarana waa lagu kala duwan yahay waxina mideeyana waa jiraan marka arinta amnigu waxyaabaha ina mideynayay number 1 ka tahay sababtu waxa weeye weynoo wada dan amnigu